beri baa waxaa jiri jira carruuray tuulo waxaana ku noolaa nin beeraley ah. Carruuray ninka beeraleyda wuxuu ahaa nin faqiire, laakiinse wuxuu ahaa nin shaqo badan. wuu shaqaysan jiray si uu lacag u helo. Maalin maalmaha ka mid ayuu wuxuu aaday xarada digaagta lagu xareeyo, balse wuxuu arkay nasiib wanaag wax ifaayo oo dhalaalayo. Si kadis ayaa wuxuu ku ogaaday ninkii beeraleyda ahaa digaagadihiisa digaagad ka mid ah inay dhasho ukun dahab ah subax walbo. ninkii beeraleyda ahaa wuxuu dareemay inuu aad u nasiib badan yahay. wuxuuna bilaabay inuu helo lacag ku filan reerkiisa maalin kasta isagoo oona iibinaya ukunta dahabka ah. Carruuray maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii beeraleyda ahaa wuxuu is yiri maxaan u helaa maalin walba xabad ukuna aniga oo heli karo ukumo badan maalin walbo si aan u helo lacag badan. wuxuu go'aansaday inuu xaaskiisa u sheego, isla markiiba xaaskiisa ayuu u tegay wayna ku raacday inay doorada qalaan. isla markiiba waxay qaleen digaagadii. Carruuray ninkii beeraleyda ahaana wuxuu bilaabay inuu digaagadii isla markiiba uu qalo. nasiib xumo markuu qalo digaagadii yareed ninkii wax uu ka helayna ma aysan jirin, dhiig iyo wixii ay cuntay maahane. ninkii beeraleyda ahaa wuxuu ogaaday nacasnimadiisa iyo doqonnimadiisa uu digaagadii